gudoomiye ku-xigeenka garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolka Togdheer ayaa darro iyo wax laga xumaado ku tilmaamay xadhiga maalintii shalay lagula kacay televisionada eryal iyo horyaal in ay xukuumaddu shalay toole soo xidhay labada TV ee kala ah eryal TV iyo horyaal TV xukuumadda waxa leeyahay war miyeydaan garanay waxa xidhaan mooyaane waxa wanaajisaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee garwadeen ka yahay madaxweyne Muuse Biixi waxa caadaysatay in ay dadka shacbiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland u dhashay iyadoo aan kiis lagu haynin xildhibaanada jamhuuriyadda Soomaaliland muwaadiniinta Soomaaliland iyo TV-yada ama hay'adaha warbaahinta nooc kasta ay yihiin in ay xidho madaxweyne waxa leeyahay oo aan waliba xukuumadda aad iyo aad ugu boorinaya inaad ka waantoodaan haddii ay noqotay meeshii xukuumaddii jamhuuriyadda Soomaaliland ama dimuqraadiyadeena ku noolaynay mindi ka horgeed oo ay noqotay in midna la xidho midna la xabiso sidii la doonanayo xukuumadda u tallaabto sharcigii iyo kala dambeyntii jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku heshiisay haddii aanay waxba ka jirin oo laga noqday xukuumadda ha noo cadayso waxaan aad uga xumahay oo aad uga xumahay wasiirka warfaafinta Maxamed Muuse Diiriye isagoo aan wax allaala iyo wuxuu cuskaday aanay jirin hay'adahan warbaahineed inuu waraaq u keeno isagoo ku saxiixan yahay waraaqdiina uu diiday inuu nuqul ka mid ah siiyo ay xaq u lahaayeen in la siiyo nuqulka wixii lagu soo eedeeyay wadarkiisa xalay toole mas'uuliyiinta labadan TV iyagoo ka hadlaya arrinka wax allaala iyo wax loo soo cuskaday iyo wax allaala iyo wax loo sheegay oo aynu shalay toole arkaynay haba yaraatee ma jirto waxaan leeyahay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi garwadeen ka yahay shalay baynu dulmi diideynay shalay baynu dulmi ka cararaynay haddii maanta dulmigii aynu shalay toole ka cararaynay aynu maanta inagu samayno madaxweyne 28 sanadood jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay waxaan u arkaa inay tahay hal bacaad lagu dhisay madaxweyne ka waantooba shaqolka askarta haddii ay doonaysaan wax walba in xandaraabtaan oo waxna aydaan furina noo sheego shacbiga soo bayaamiye cabdiqani cabdullaahi maxamuud cabdiqani baafo wararka telefishinka royal TV magaalada Burco.